laba sheekay leedahay maasada hooyay la'aanta mid waxay ahayd anigoo yar oo caruur ah ayaa geel la arooriyay geeli baan raacay aad baan u yaraa u malayn maayo da'deedu 6 jir ka weynayd 6 jirku waqtigaa dee kulleyba uu nolosha kaalin buu ku lahaa qofku yaraantaba dee kaalin buu nolosha dee kaalin qofku da' kasta joogay nolosha cid kasta nolosha kaalin bay ku lahay marka anigu kaalintan kula waxay geelaasi markuu la arooriyo ceelka la geeyo inaan is hortaago oo marba in la sii daayo inta waan karayo da'daasana dabcan dabada geelaasan raacay la arooriyay wuu soo cabay wuu soo fulay goor caways ayuu xeradiisii uu ka arooray u yimi xerada beelgoodii ku taalo reerku ka maaragtay waa ka yar durugsan yahay reerka geela hadii ay ka dhigo geel uu xareysan yahay intiisa kale way ka durugsantay xerada marka xerada baa geeli waa soo xiroodayo waa la maalayo maanta oo dhan waxba la waraabinay maanta oo dhan geeli baan hortaagnaayo markii la maalay caanihi la dhamay waa la gataati dhacay yariyo aniga iyo ragii waaweynaa tira kale oo tabaati geela waraabinay gataati dhacu marka daalku kugu khasbo inaad istaagi kar weyna aad hadii ay ka dhigo maaragtay aad beeru sidaas waa istuurid weey hadii gataati dhacay saado imka uu si kooban u sheeg kartay wala daatay dabeetana goor caweys baa kaadiyay goor dambe oo mala sar dhool la hurday ayaa caanaha geelu iska caadi kaadi badan bay leeyihiin tooso kaadi bay qabato waxa soo kaadi kartay marka hal baan arkay oodi geelu markuu soo cabo waa caadi iska jirta habeenka hadii aanu biyaha caws ka dambaysiin waxa lagu yaqaanaa inuu ka daato xerada وكعر هذا كذا وينو داق ما هدو بيسوع عبو على شاق بيها قبو على شكوتشرة وينو وحكو هدي له كذا ما تي وينو داخله هدي أي لواي أو سيدا توصل وصو حرة وصو كله لازم وكابك حرة كتاتا سما ذاك مركا وان توصل وحن سيري كاري بقى توصل كاري بان سيريو وحنا كهال oodii jeexday oo qaarkii hore dibadda ula dhacday qaarkii dambana waxay ku jiro waxaan siri ashaata sira soo celi meeshu waa meel caanaho waa waqtigii libaaxa oo lulku sidan oo imika u araday ma ahayne lulku waa camiraayo dugaag oo dhan nooc kasta ayaa jooga marka waxaan saadada shaaysta soo celi bahalka areeraha ka ciyaya ee libaaxa la yiraahdo ku deyn maayo ku qaadanaya tabandeer yar baan inta halkii aan fadhiyay iskaga kaaji ayaan halkaa dhicay iska sii seexday hashi halkii bay ka baxday geeli oo dhamina halkiibuu ka baxay waa wabax baa la yidhahdaa habeenka xerada kuma jirayo waa la ilaaliya habeenka guuxa libaaxana waa la maqlayaa afarta baynishuu ka ciyayaa libaaxu waa waqtigii dhulku camiraa weeye wax walba joogeen ma xoolo iyo bani aadam ee dugaag ku nooca ayaa dee joogay iyo ugaadh ku nooca marka goorda baamala geeli xeradiiba halkiiba ka baxay nin way baa toosay oo kaadi qabatay xeradii waxaa fadhida hal kaliya oo biyo la kici weynay oo duqa waan weli magaceeda xusuusto qaabil la odhan jiray qaabil ayaa xerada fadhida intii kale way dareereen kii markuu toosay xeradii oo maran arkay waqtigaa dee meel loo baxsadaana ma jirin oo magaalo iyo qurbe iyo wax kale ma jirin oo ninku hadduu hashii xerada ka waayo تمير ماله ويميرو عرضيو كله يميرو شغتيو كله ما جرتو حردي بركو arkay baranta bi warka kaca geeli xerada kuma jiray tabeedna wala yaacay in waqtiga saqada dhaxay hashiisa xerada ka waay ma biir qabo markii la yaacay aniga halkii baa laygu ilaaway wareer baa dhacay aniga yaa shaqa bilabiya la kici weyday labadiina la kaga tagay loo kala tagay koorda baa kaadi qabatay qori xoro mise وأرجع هالشقابل إب أو بيلك عويدي الدقة هو بيرب بدن ندسوا عبتو بيلك عويدي تعال لك كلك عضو مركب حن سير هاي كل جنوات دروس وحن ساتادي مكدس سهرك قبنا تدي حدا بحال قاق عضني مركب أرضا للسبية ودور يدور ما يسوي شيء وقبل السبية قلبتي أيام ضحكة وشركة كتشرت اللي باعوا araga waxba kuma dilay urtu wax ku dilaa ama bahal oo dhamay eeyga weydii ka arkay sida markuu xiraadinayo bisaduhu waa the same thing libaaxu waa sidaas tabeedna markaas ay sir wallahi caawade
urbuu kolay ku imanayaa laakiin urta mar haddii hashani joogto xerada dhex fadhida dee waxaad leedahay rashaad leedahay iyadaa la cunayaa haa dee qaabil allah yakhalli qaabil ya dabeedna uun duurkii iyo ardaagii jiqda ahaa ee cawska ahaa la dhisay ayaan dhex galay dabeedna halkaa raarta anigoo meesha ku jiro oo meel yar labada indhood meel yar laba duur inta saa u yar kala qabto wax ka daawanaya yaan halkaa dambe ee xerada raarteeda dambe saqar ka maqlay cadday ahayd waxaan filayaa ama 13 ama 14 dayaxu habeenada bayaxowga la yiraahdo waa egay qoryo xero bilaax waaba ka soo boodi xeradiiba saqad baalku lugihiisa waxaad moodaa spring baa ku jiro markuu soo boodo saqadhiisa dareer la maqli maayo inta badan baalku dee waa bisad yar uun adigu adiga arkay aayar buu saa u soo booday saqadhi yar oo fudud waxay la mida maray aad sii dayso dhulka ku dhacday dabeedna waa dayaxay waan eegay markuu raartaa ka soo booday saasuu ii hormaray hashii qaabil oo halkaa fadhido iska raabsanaysa ayuu u tegey hashi saas u jaleecday oo u eegtayoo kici kari mayso dabeedna baalku oomanu joogaa waa meel hawda oo mana ah oo ugaadh baa cariga ka buuxday hilibba dooni maayo waa raadan yahay biyay raadinayaan marka hashiiba halkaa maaragtay halkaa goljilic baa la yidhaahdaa intuu soo ag taagay ayuu halkaa goljilic waa halka ugu jilicsan waa meel cadkii ka dhammaaday oo waa haraggii oo keliya oo goljilic baa marka horeba iska jilicsan waa halkaasuu qabto saasuu soo dhuftay kasa biyihii soo boodeen hashii saasay u jaleecday xataa way cabaadi kari weyday kicid iska daa biyihii baa dee galsha noqday balli yaroo dabeetana jilbuhu dhigay biyihii buu cabay biyihii markuu cabay hadda markaa waad daawanaysaa anigu de waa anigiyo haddii ay ka dhigo insha allah dhinaca farsamada mid kuu jirto ninkan haa aad iyo aad laakiin urin maayo dee urtii waxaa ku gudban hashii ya hadduu iru lahaa oo u iman lahaa way heli lahay laakiin urtii waa isku mid qofka urtiisii hasha isagu urtiibuu ku yimi hasha urteediibuu ku yimi waa gartay kabacdi markii biyo cabay dee waxaan filayay markaa inuu baxee waaba iska dul fadhiistay aayar buu fadhiistay nina sidaasuu labada jilib dee labada qaarka dambe ugu fadhiisto cabaad buu fadhiyay markaluu biyihii ku noqdayoo markuu cabay ayuu meeshii geelu ka baxay marka maadan ooyin miya adiga caruurta waxa lagu yaqaan waxaasi ma jiraan oo waqtiga oohinayo in qofku lix jirka waa ku nin raga weeyo libaaxay koodi maaha dadkan iska cambaha qofka waa la leeli jirayo inuu ooyo iyo waxaasi mamnuuc bay ahay libaaxana wad ka warhaysay inuu ooyo qofku waliba raggu ilaahu ma afar jir noqdo oohinta mamnuuc bay ahay iyo cabashada iyo jiljileeca iyo waxaan oo dhami ma jirin noloshaan anigu dhexdeeda ku dhashay marka calaa kullin bahalkii wuu baxay qoryo xorana waa alxamdulilaahi ayaa mid kale kadinkii geelu ka baxay kasoo galay libaax kale oo isna ma ooman yahay talow isna biyihii iyo markaa dee batay ayuu isna iska dul fadhiisto wuu cabayoo markuu cabayba saaca isu taagayo cabaar buu jimicsaday oo iskala bixiyay oo iskala gurayo markaasuu bahal ciya subxaanaka yaa cadim markaa isku shareerto markaasuu isagiina mar dambuu baxayoo dabeedna hashii weli biyihii waa ka socdaan wax weydiyada ma gaadhin weyno way dee may dhimani layne biyihii unbaa ka socdaa foosto malaha biyo foostaa biyaha unbuu ugu talagalay inuu ka waa oomaya hilib dooni maayo hadduu hilib dooni hasha u arkaya inaanay wax la cunaba inaanay ahayn marka adigu mar saddexaadkiiba waxaan arkay muuq kale oo soo socda muuqa markaa soo socdaa maaha libaax oo dee waad arkaysa waa caddo bahal maaha waa wax sidaa u dhisan sidaa u taagan oo laba adin ku soconaya marka waxaan is idhi bahal berigii horena lagu cabsiin jiro carruurta habeenkii lagu sooxin jiray oo la odhan jiray madax kuti bahal dadqaadahoo madax kuti la odhan jiray markaase waxaan is idhi wallaahi iyadu de waa iska dadoo ilaa kuwa hore urtii iyo qaabil iyobaa kaaga filaatay kanisiduu waxaa siduu u soo socdo ayuu dee ku qaadanaya waayo waxaa la odhan jiray madax kuti baa jirto habeenkii guriga duleedkiisay timaadaayo markaasay carruurta yareer magacyadooda dhegaysataayo marka la seexdo ayay muska isi soo taagtaayo markaasay odhanaysaa hebelow ama heblaayo markaasuu odhanaya hee markaasay odhanaysaa hoo misigtan markaasuu odhanaya isiyo markuu gacanta soo fiiqo ayaa la gura markaasaa taasaan qaatay muuqii kadinkiibuu soo galay
waa arkaya inuu qof yahay laakiin cabsida ay haysaa ka xoog weyn qofka aan arkayo marka calaa kulli muuqii siduu soo socday ardayga isoo taagayo markuu ardayga isoo taagay ayuu xaggan eegay xaggana wuu eegay xaggana wuu eegay dabeetana markuu saddex hareerahoo dhan eegay ayaa qofkii hadlay wuxuu yidhi alla hoogi markaasaan gartay inay hooyaday inay hooyaday tahay oo waxaasoo libaaxa soo jiidhay oo markay raggii baa guriga sii maray oo hubiya wax ka guranayay markaasay ku ogaatay in halkii lagaga yimi halkii baa ka soo booday dabeedna hooyaday anigoo haddii ilaahay ka dhigo dee muskii hooyada halkii baan ka iga kaxaysa anigoo labadeedaa lugood dhexdooda ku jira taasoo dhacday ayaa habeenada ka mid ah koleyba waqtiga sheekadan baa ku gabagabaynayahay xamar muqdisho la foole meel la yidhahdaan waqtigaana joogay magaalada muqdishoan muraad u soo yeeshay magaaladii baan ka muraadsaday basas ka bixi jiray oo yaryar baan raacay meel kantaroolka u afkooya looga baxo yuu istaagay wuu ka dhaqaaqay markii uu kantaroolkii u dambeeyey muqdisho ka dhaqaaqay ayaa waxaa kuraasida baabuurtu waxay ahayd baabuurkaas wuxuu lahaa 2 kursi oo dhaadheer saf halka ka soo jeeda iyo saf halka ka soo jeeda halka hortayda waxaa fadhiya qof dumar ah kursiga igu beegan waxaa fadhiya qof dumar ah waa qof da'yar ilmo yar bay dhabta ku haysaa tiric bay sidataa iyo googarad iyo bahal ay huwanayd baskii markii uu yar socday ayaa ilmihii yaray dhabta ku haysay oo hin bilaabay waa misi waay wax walba way samaysay waa aamusi waay qayladiisii dadkii baabuurka ku jiray wuu dhibsaday mar keliya ayaa hooyadii intay sidaa halkaa gacanta gelisay ilmi yaro halkan jiifa ayay naaskii soo saarto afkaabay u gelisay shok baa markaa dhacay caado ma ahayn dee qof dumarahoo soomaali oo da'yari inay naaskeeda meel geeyaan fadhiyo rag fadhiyo inay naaska arrin adag bay ahayd inay naaska ku soo saarto laakiin waxaa dhacay duruuf xukumaysay inay soo saarto go-aankaa qaadato marka dhaliilima imanne anigu saasaan uga horjeedayo waxaan gartay uun habeenkaasuunbaan si fiican u gartay waxa hooyanimadu tahay yani maaha mid yani naaska ay halkaa horta naaska ay halkaa usoo saartay nacasnimo kama aha qof qaade anshax darro kama aha laakiin waajib hooyanimo ayay gudanaysay naaskii baa foggaraysto ilmihii naaskii uu jaqayo markuu dee ka dhirkay abaalgudkii lagu yaqiinay buu bixiyo dhabteedii uu saxaro iyo kaadi iyo banka buuxiyey iyadoo halkeedii fadhida subxaanaka yaa cadiim marka baraganimadeeda gabadhii dabadeetana diricii bay soo gurto horta saxaradii ee ku dabooshay iyadoo u jeeda dadka baabuurka ku jira dadka qaar miyaa dhibsada markaa waa la dhibsanayaa oday horta waa la dhibsanaya qaar baabuur cimaamadihiisaa yidhi laakiin waa caynkaas marka horta waxay isku dayday inay urtii xal u hesho diriceedii bay soo ururisay banta ma garanaysa saxaradii ayay ku duubto ku laabtay yaa soo horay ilmihii qoyan gogaradeedii bay soo gurtay oo ilmihii ayay ku qallajisay isagii oo dhan hooyada waajibka iyadana dhul fadhiyin oo aqalkeedii fadhiyin oo meel dhula fadhiyin baabuur saaran ayay waxaas intaasoo waajiba ay gudatay ilmihii qallajisay ilmihii aamusiisay oo caana siisay dadkii urtii ilmaha ka dabooshay subxaan allah halkii baan horta markaasaan gartaan hooyadaas waxaa ka keenay xishood darro maaha waajib culus baa yidhi oo aanay ka adkaysan karayn oo ku noqon lahaa fadeexad iyo dhegxumo ilmaha yagii caawoo dhan ooyo dabadeetana dadku marka dambe iyada magan ilaahay dhulka kula gooye maxaad u aamusiin weyda haddii ilaahay ka dhigo ilmaha yar intaasoo dhan iyadoo baabuur gudihii ku jirta ayay gudatay baabuurkii halkan ku socday wayla dhaafay habeenkii waa isilowdayba waan isilaawa habeenkii baan xusuustay iyo hooyada iyo libaaxii iyo labadii sheeko habeenkaasaan reesta markaan gurigaygii imi waqayili jiro qaad baan sitay ayaan haddii ilaahay ka dhigo gurigayga hooyay la-aanta habeenkaasay soo baxday hooyada qura maahay hooyoo dhan ayaa sidaasa hadiyo goor xaqa waalidka lama gudo oo lama gartee
bal hooyada caynkaasa waxaad bal aan su-aal dadka weydiiyey bal hooyada caynkaas ee taas aan ka sheekaynayaa ama mar libaaxa iigu tiri ay halkaa istiri adiga ha ku cuno seexan weydey intaasoo dunida waxaa libaax kaciyaya soo jiidhay halkaa iigu timi iyo tabaskaa gudihiisa ilmaha yar haddii ay ku kaliftay inay qaawiso ilaa kubabkeeda waa ilmihii aamusiso asturto hooyadaasi markaa bal su-aal baa weydi waxaad le bal hooyadaasi maxay xaq u leedahay bal ka warran